بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعن وناكسن داوديال كسو دوادا برامجka bandhiga qoraaga oo toddobaadkan si toos ah idin kaga imaanaya xarunta labaad ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Mukhtaar Cabdi Aadan toddobaadkan barnaamijka bandhiga qoraaga waxa noogu marti ah Aadan Macalin Cumar Aadan Wadani oo kamid ah qorayaasha Soomaaliyeed dabcan Aadan marka hore ku soo dhaw telefishinka SBC waan ku dhawahay Mukhtaar Cabdi Nadaara adi iyo cameramanada iyo bahda TV-gana waa mahadsantihiin aad baan ugu dhawahay waa gartay Aadan waan kaaga mahadcelinayaa tan xigta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Aadan waa kuma in dadka asbarto Aadan taariikhdiisa heerkiisa waxbarasho dadka ugu sheekayso aniga kulay magacayga dhameystiran waa sida ka dhawaajisay Aadan Macalin Cumar dadka qaarna waxay ii yaqaaniin Aadan Wadani waxaan ku dhashay magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan ku soo barbaaray xaafadda Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxbarashadii dugsiga Quraanka Kariimka halka ku soo qaatay dugsiga dhaxa iyo sidoo kale meesha ku soo qaatay burburkii dagaaladii markaa sokeeyaha markaa maxaakiintii aan qaxnay kale waxaan aadnay gobolka Shabeellaha hoose qaasatan magaalada madaxda ee gobolka meesha magaalada marka meesha waxbarashadeeda ku soo dhameysay dugsi sare xoogaa ayadoo markaa gabaabsi aan imaaday magaalada Muqdisho ee degmada Hodan ayaan ku dhameystay waxbarashadeedii ee degmada ay raahdo Wadajir halkaas ayaan markaa hadda aan ku suganahay aadano qoraab baa tahay dabcan laba buugna waad qortay dabcan oo midi aad ugu magac dartay dawladnimo waa door iyo sidoo kale buugga caawiyaha qoyska bal labadaas buug ee aad qortay maxaa kugu kalifay horta hadaan ku hormaro buugga dawladnimada waa door waa buug markaa dareen wata markaa aan iska qoray uma qorin marka marxalada kala duwan ayaa markaa buuggaasi uu markaa xambaarsan yahay aan ku diyaariyay marxaladaas oo ah maalmaha kamid ah ayaan anigoo wado lugeynayo xil 4 saac haweenimo ah ayaa dhacday in markaa aan dhalinyaro qeylidooda isoo gaartay wadooda ayaan waa xil 4 saac haweenimo ah markaas ayagoo markaasi hadalka ugu dambeeyay markaa aan ka soo dhigi karo nuxurka hadalkooda oo isoo gaaray xiligaas wuxuu ahaa dawladnimo wax ma noo tarayso waa kana u jeednaa wax ma haysano saan waaye ayagoo dhahayaan ayaa hadalkaas isoo gaaray sida oo buugga ay naftigiisa oo ku qoran yahay qorahdaas gaaban markaas waxa marka aniga isfiiriyay marka dhalinyaradii waxay noqdeen qaar marka meesha joogeen ku hakaday qaar dhankii aan ka soo socday u soo baxay qaar marka meesha u socdo aaday ay noqdeen marka waxa is weydiiyay marxaladda xiliyaas aan joogo ee marxaladda aan ka horeysay aan ku soo barbaaray as barbar dhigay marka ayagana hadalkay ee dhaheen oo ahaa dawladnimo wax ma tarayso dawladnimo maxay tahay ayuu dhahayaan markaas waxa aamiyay inaan dadka u sharxo dawladnimada waxay tahay ayaan sharxay waayo xiliya dhici jirtay waad ka warqabtaa Nadaara xili aan la socod karinaa jirto maqribadii aan amniga iyo markaa isla socodka dadka dadweynaha ay aad u yareed xiliga aan socdan waa 4 saac xili ay caaweenooyin waa 4 saac habeenimo xilina maqribka waa dib la gaaro guri ma ka bixi jirin waa lagu dhacay ama lagu dilayay ama waxyaabo far oo markaa foolxuna lagu sameeyay marka heerkaas oo had aan taaganahay in haween aan socono waxyaabaha dhaliyay waxay tahay ahayd waa dawladdaas dadaal far badan bixisay marka taas jirto aan isdhahay marka wax buugaas dadka ugu sheeg waa gartay sida aad sheegtay dhalintaas meel banaana fadhiyeen oo ereyadaas aad maqashay ereyadaas ka dhax abuurtay buug bal maxay ka caawinayaan dhalinyarada wallahi aan horta hadalku iga horeeyay dooda iga horeysay laakiin inta isoo gaartay oo ilaa wada qof ku socdaatay mugtaa qof la fadhiyo matid hadii fadhisid aad dhigi kartaa hadalka meeshu ka soo bilaabmay iyo meeshu ku dhamaada ka warqabi kartaa laakiin gunaanadka doodoodii ayaa sidaas ahayd marka buuga kama hadlayo kaliya dawladnimada wuxuu ka hadlayaa sidoo kale qabyaaladda ka hadlaya uu sharxaya dhibaatadeeda wuxuu kale ka hadlayaa sida loo hortagi karo
wuxuu ka hadlayaa dimuqraadiyadda waxay tahay dad badan hadda waxaa arkaysaa leeyahay dimuqraadi dhahayaan u sharxeyno ayaa ku jiro. waxaa kaloo ku jirto sidoo kale gabayo iyo ducooyin oo markaasi loogu duceynayo dalka Soomaaliya oo Soomaali ah ayaa ku jiraan. tixda markaa ugu jirto oo buugga waxaa ka mid ah tix aan ugu magac daray dalkayga dalkiya u maqan oo ku maqan, taasoo ahayd dalkayga ugu diirnaa daawashan ku wacnaa daweel baa haleesho daacunaan dabadiisa daa'im oo cid kale aan dabiibi karin bay dusha kaga daadisay. dadkayow hadday dulucdu sheekadu sidaa tahay dalkaya u maqan oo ku maqan. waa gartay aadan buuggan dowladnimo waa door muddo intee la eg ay kugu qaadatay inaad qorto? wallahi buuggan horta ani waan bilaabay ilaa hadda wuu socdaa. hadda qaybaan dad markaa aniga kolay qoraa oo hadda buuxa ma ihi qof hadda waxaan ahay soo ifbaxaya. midkaan aqoon leh mid kale kasii aqoon badanaa jiro. bulshadan sideeda waxay isugu jiraan qof kugu aqoona, qofka aqoon sareeya iyo qofka aqoon hooseeya. marka intooda badan waxay ka baahan yihiin qancin. qofka kugu aqoonka ah wax faaltana adeeg kaga dhaxeeyo, qofka ka aqoon hooseeyna adoo kugu dayana waxa sheegtid oo accept gareena ama saxiixaya. qofka aqoon sareeyana adigoo markaas ku yasayaayo ama wuxuu rabaa inuu markaa ay ku faa'iideeyo. marka intooda waxay u baahan yihiin saddexdaasi qofood oo bulshada isugu jiraan inaad qanciso. marka buuggan waan bilaabay waa ka caajisay ilaa iyo 10 page 20 page anigoo maraayo. haddana wiil ay u dhiirigeliyay oo markaa saaxiibkayga asagna qoray buug asagna la yiraahdo waraysiga shaqada. wiil qoraya asagna igu ay dhiirigeliyay inuu buuggan ma dhamaystirtid waa buug magac fiican wato saas uu yiraahday. waa sii waday haddana waa ka caajisay waayo markaad wax qorayso way adkaanaysaa inaad sii wado waayo waxyaabo badan iska fiirisid loo baahan yahay waxa jirto eraya qaar oo markaa suuqeed ah inaad adeegsanin. waxyaabo fara badan ayaa jirto weer isku xirkeeda. marka waxa igu dhiirigeliyay qofkaas oo ahaa markii inta muddo aan qorayay waxay ahayd ku dhawaad hal sano. waxaan bilaabay 2017 dhamaadkeeda bilaabay laakiin waxa si toos aan u aan qaaday 2018 dhaxdeeda ilaa 2019 qoray ilaa haatan waxa waa qayb soo baxday waa editing ku socdo waa la sii haweenaya. dad iyo aqoon badan waan u geeyay, qaarkood way soo bixiyeen, qaarkood ciwaano kale ay tilmaameen in lagu soo kordhiyo ay muhiim tahay hada sida dimuqraadiyadda oo kale xukuumadda waxay tahay oo kale. dadka waxa leeyahay waxyaalaha dhacay waxa la dawladda markaas jirta waxa sameysay. dawladda horta magaca markaan leenahay dawladdu waa wax dhisan. dawladdu waxay ku dhisan tahay waxay tahay aniga adiga inaga oo badan ay ku dhisan tahay. laakiin wax maanta hoggaanka hay dawladda ma waxa hay xukuumad waa. dawladda isma bedelayso, magaca dawladdu uu taagan yahay laakiin waxa isbedelayo waxa waa xukuumadda waa. way adiga biri madaxweynaha noqonaysa, ani madaxweynaha noqonaa, saaxiibkeena madaxweynaha noqonaa. marka wax isbedelayo waa wajiyadii laakiin magaci dawladdi calankii qaranka uu taagan yahay. waa gartay buuggan dowladnimo waa door imise cutub ayuu ka kooban yahay? kolay cutubyo hadda oo ciwaano markaan ka hadalno dhowr ciwaano ka kooban yahay. inkastoo hadda aan kor ka xasuusan laakiin uu ku xusan yahay. qaybta ugu horeysayna waan soo bixinay laakiin si wanaagsan uma soo bixin. laakiin hadda aan rabnaa inaan soo bandhigno bulshada aan la wadaago hadduu ilaahay markaa noo qadaro. laakiin qaybta ugu horeyso dad aan siinay way jirtaa oo aan markaa safiri ku siinay taasoo aan ugu dan lahaa qof walbo buug waxa ku qoran contactiska ciwaanadii ku qoran qof waliba fikirkiisa iyo wuxuu qaladaad ka helo inuu isoo gudbiyo. maasha Allah bulsho badan oo soo wacday way jirtaa waxaas ma habooneen inaad tiraahid saas ma habooneen in dhahayn. xaqiiqatan maanta dhaliil way jiri kartaa. dawladdu maanta jirto ama markaan ka hadlayo kala ama wax ka diyaarinay ciwaan oo ku saabsan dawladda hadda jirto ka hadlayo waa haboon in aan waxyaabaha jiro aan soo taabto iyadoo aan ku dheeraanaynin. sidoo kale ciwaanada ku jira waxaa ka mid ah dawlad wanaaga waxay tahay. dawladda wanaaga waxaa loo baahan yahay marka ay ku jiro markaan sharaxno inay isweydiiso waxyaabo fara badan oo ah xilliga aan muddada aan ahayn xilka maxaa noo qabsoomay, maxaa noo dhaliilaya, maxaa sababa in dhaliishaas noo dhaweelo, maxaa ku xalin karnaa dhaliishaas noo jeedinayo,
maxaa naga habsaamay maxaa qaladoo sameyn su'aalo fara badan ayaa jirto oo dawlad wanaagga isweydiinayso ayadana way ku caddahay buugga ku caddahay ma jira marka wax dhaliilo ah mise wax bogaadin ah lagu soo gudbiyay aniga dhaliil way jirtaa xataa waxa la yiraahdaa buug dawladnimada maxaa faareed ku geliyay dalka xilli xulmo marooya maxaa ku geliyay arrimahaas dad ay dhaheen way jiraan laakiin macnaha muhiimadda waxa waaye qofkan hadafka waayo maanta tilaabo kasta aad qaadayso waa laga fiirsadaa 100 jeer laga fiirsadaa wax faa'iido kugu jirto dhibaatada ka iimaanaysa laga fiirsadaa marka buugan intaan qorayay fiirsashan waa hayay howlgan wanahay maantana kuma dhaliilay dawladeena Soomaaliyeed dawlad shisheeye kuma hadlay macnaha waxaan ku bandhigayaa ama ku sharxayaa oo kaliya dawladda waxay tahay waxyaabo loo baahan yahay waxyaabaas bis qabyaaladda waxay tahay qabiilka wuxuu yahay waxa aan sharxayo waa qaabka marka qof dhaliil ma waanaysid maanta daa horumar sameynaysid hadaad wari inaad noqoto u baahanto dad badan ay ku leeyahay waa lagu dilaa wari maxaa u noqonaysaa ay haddii aad noqoto fanaan inaad noqoto daarabtid waxa lagu leeyahay heesaha ma fiicna saan waaye diinta ma fiicna saana lagu leeyahay waa lagu dhaliilaya marka hadba qofka asigoo ku xiran tahay dhaliil way imaanaysaa madaxdii kaa sareysaa la dhaliilaya marka adigoo hadda bulshada qayb ka mid ah tihid waxa waaye in lagu dhaliilo way dhici kartaa waa gartay aadanow buuggan dabcan dawladnimo waa door maadaama badi uu ka sheekeynayo dawladda ma jiraa siyaasiyiin mise mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya garab ku siiyay wallaahi ma jiraan dad siyaasi oo hadda aan saaxiibna xitaa ma jiraan laakiin kuwa qaar oo aan kor iska naqaan way jiraan garab hadda oo siyaasiyiin nasiina ma jirto haddii laga reebo wiilkaad aan kuu sheegayo igu dhiirigeliyay inaan markaas buuggaasi soo bandhigo maalin xalfadaan ka qayb galaynay ayaa markaas laga codsaday inaan buuggaas xalfadaasi keeno 20 xab camal la daabacay buugga dawladnimada door waxaan go'aansaday in aad tijaabi nasiibkaaga dhalinta meeshaas joogto ay faa'iideystaan tijaabi nasiibkaaga ah warqad ku qorneed waan helay iyo ma helin warqad waxaa badneed marka waan ma helin marka qofkii ma helin u soo baxay buug ma lahan marka qofkii waan hel u soo baxdana buugan guddoonsiinayay sida inta badan aad aragtay page-kii aan soo dhigay bulsho badan ay arkeen qaar badan oo had qaatay way jireen qaar oo soo arkay oo idhaaheen buuggaas oo baana intee ka helaya idhaaheen way jireen marka qaabkaas waa gartay buuggan dabcan sidaad sheegtay waa daawacday oo baraha bulshadana in badan uu dhaxyaalaa bal maxaad ka filaysaa wallahi buuggan hadda kolay waa hordhac uu ahaa insha Allah waxaan rabnaa inaan haddii aan waqti u helno inaan bandhig weyn u qabano bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed markaasi aaminsan dawladda waxay tahay si qaldan u aaminsan in aan u sharaxan horta waa maxay dawlad maxay markaasi qaab dhismeedka dawladda xukunka dawladda waxyaabahaas oo dhan inaan sharaxno oo ku sharaxan yahay buugga uu sharxaya waynu markaas u sahlan tahay qof waliba marka muwaadin Soomaaliyeed ah daneenayo inuu ogaado waxa ku qoran culumta ku qoran qabyaalad hadda maanta waxa maqlaysaa qabyaalad in la dhahayo qabyaalada sideeda waxay tahay qabiil hadda maanta dad waxa arkaysaa qabiilkii ku faanayo qabiilka sidoo yahay qabiilka horta markuu aas marka la fiiriyo oday baa oday dhalay waay odaygaas mid kale uu sii dhalay midkaas mid kale uu sii dhalay midkaas mid kale uu sii dhalay midkaas adigoo ku dhalay adigii waxa dhashay wiilkaad markaas aabo u noqon lahayd wiilka aad u noqon lahayd wuxuu sii dhalay wiil aad adiga awow u noqon lahayd wiilka awow aad u noqon lahayd wuxuu sii dhalay wiil kale oo aad adiga u noqon lahayd waxa lagu yaqaano abkow ama waxa noocyadaas ah marka silsilada qabiilka waa sidaas wax ay marka ay dadka buunbuuninayaan waxay tahay wax aan marka sahlanayn waa gartay aadanow dabcan buuggan dawladnimada door dabcan ereyo badan waxaa ku jira cajiib ah adiguna waxaa tahay nin dhalinyaro ah muddadii aad qoraysay buuggan ma jira abwaano iyo qoraayaal kale aad kala tashatay way jiraan ilaa haatan wax waa buugga dad hadda gacantiisa oo ku jiraan ileen markii buug daawacay ama kan qoray daawacay dad fara badan oo kala dhiibay buugga macnaha taasna waxay tahay qofkan uu kaaga horeeya wax buu soo qoray macnaha taasna waxay ii sahlaysay
hadda dad badan oo buuggii aan ka soo qaaday way jiraan isoo calaamadeeyay oo isoo qoray dhahay meeshaas saanay ku habboonaan lahayd sidaas saanay ku habboonaan lahayd ilahay way jiraan abwaano badan oo saaxiibana way jiraan dad macallimiin ah oo markaa ku fiican suugaanta iyo lahjada iyo luqadda intuba ku wanaagsanna way jiraan oo aan markaa ka soo qaatay qaarkood ii tilmaameen ciwaano oo habboonaan lahayd inaan lagu soo diro fikirkaas aan ka soo qaatay way jiraan ilaa haatan dad macallimiin hadda oo iyo abwaano ku maqan yahay jira buugga oo ayaga jawaab aan ka sugayo gartay diyaarinta buuggan inta guda jirtay buuggu maadaama uu ka sheekeynayo dowladnimada ma jira meelo kala duwan aad tagtay si buuggan aad u diyaariso ilaa buug markii la diyaarinayo ma ahan wax sahlan waxa laga rabaa in waxyaabo fara badan aad soo raadisaa aad ogaataa marka qof dhalinyaro waa tahay siyaasadana dabcan buuggan kama marna uu ku jiraa ma jira goobo aad tagtay sida dadkii hore kale buugyada qorayeen waxay tagi jireen goobaha miiga oo kale si waxyaabo fara badan ay u soo ogaadaan ee buuggan ugu daraan way jirtaa horta dad badan su-aashaas isoo weydiiyey way jirtaa qof dhalinyaro tahay see kuu suurta gashay inaad dowlad ka hadasho xaqiiqatan horta wax walba cilmi wax walba barasho u baahan yihiin waa sax dadkii hore miyiga tagi jireen waxyaabo badan ay sameyn jireen marka laakiin miyiga ay tagi jireen waxay ahayd waa marka laga hadlayo dhaqanka oo kale markaad wax ka diyaarinayso ama hab deegaanka oo kale markaad wax ka diyaarinayso waa ku xiran tahay inaad miyiga tagto sida u dhaqmayaan aad ka diyaariso laakiin tan ma ahan wax aan diyaarinayno ciwaankan wax ma ahan dowladnimada door buuggan ugu magac darnay wax ku qotoma dhaqanka ma ahan laakiin wax ku qotoma waa culum oo ah wax la baranayo dowladnimada qofka waxaan adiga dowlad Soomaaliya aan ka soo jeedaa maanta dowladda naftirkeeda waxay tahay waxay inaa fahamtid waaye laakiin anigoo taas su'aashaas kaga jawaabayo waxay marka anigu baara ama ku dhaxmilanahay buwaagta inta badan oo siyaasadda ka hadlayo weliba hadda aniga buwaag siyaasadda ka hadlaya ama dowladda ka hadlayso oo dad Soomaali qoray way yar yihiin laakiin waxa ay copyright ku soo sameeyaa dadka ajaanibta hadda dimuqraadiyada marka ciwaankaas oo kale nin ajnabi ah qoray waa la soo turjumay buwaagtaas ayaan daalacdaa xogtaan ka soo qaataa oo marka ay qosayso waan ka soo qaataa dad oo markaasi barta arimaha marka culumta marka sharciga iyo waxyaabo noocyadaas ahna wana xiriiraan naga dhaxeeyo wax baan ka soo weydiiyaa su'aalooyin baa weydiiyaa laakiin hadda ma jirto meel goob aan tagay ma jirto laakiin fikir iyo waay aragnimadeeda iyo macnaha kasta yar aan haysto wax barashadeedii aan isku kaashtaa iyo baaristeeda oo buwaagta iyo culumta waa gartay aadan goorma ayaa bilowday in aad wax qorto horta aniga yaraanteeda waxaan jeclaa inaan noqdo inaan noqdo macallin 2 inaan noqdo wariye 3 waxaan jeclaa inaan noqdo fanaan 4 waxaan jeclaa inaan noqdo qoraa 5 waxaan jeclaa inaan noqdo sarkaal marka 5tood maanta waxa ii hergashay 4 kamid ah hal kamid ay dhiman waayahay maxay yihiin 4 ku hergashay 4 ii hergashay waxa waaye macallin waa noqday ma sha Allah mid dugsi quraan iyo mid iskuulba waa noqday mid macad caadi ah waan dhigayay oo iyo private inta waa dhigayay ilaa haatan waa dhigaa wariyana waan noqday oo mar waxaan qoray website la yiraahdo Somiskan News oo laga leeyahay Yurub wiil Mustafa la yiraahdo asina aan salaamayo Mustafa Harun la yiraahdo ayaa iska lahaa TV oo ah laakiin TV magaciisu ku baxay mid kale waa fankan waa soo indindheeyay isagana waa wada midii dhiman waxa waaye sarkaal waay inkastoo taas sarkaalnimadu waxa waaye oo aan inta badan laga digayo oo ma habboon kuma fiicna bulshaawiya tahay bulshaawiyadna waa sarkaada noqoto waxa waaye dadka way ka kala harayaan waqtigaas ay waa gartay 5 aad sheegtay bal maxaa ku dooratay 5taas ina hobbiga qof walba maanta dunida ku nool waxa waaye wax buu jecel yahay inuu noqdo
oo ku caanbaxo adiga qudhaada maanta xirfadan hadda wariinimada aad wareysanaysid yaraantaadii waa jecleed dadaalo badan juhdi badan soo gelisay hadda waxaa laga yaabaa wariinimadii waa aragtay waxyaabo kale ee aad hunguriyeynaysidaa jirto oo aad is leedahay ama ay ku habboonaan lahayd inaad wax ka barato ama aad ku shaqayso marka taas inaad ka turjumaysaa inaan markaa hamiyo intaasoo idil waa gartay aadano goorma ayaa ogaatay in aad wax qori kartid wallaahi waxaan ogaaday markaan fikiray oo aan talaabo qaaday waxaan aqoonteeda markaa leedahay waxaa waaye inaad mar waliba aad isku dhiiriso sidaad markaas ku diyaarin lahayd horta talaabo inaad qaadida ka horeyso markaas ogaanaysaa haddaa ku guuleysato haddaa ku guuleysato markaas dhihi kartaa xilligaas ayaa markaa bilaabay marka taasaa markaa igu qasab isdhihi karaa xilligaasaa bilowday xilliga aan markaa qoralka bilowday oo ii bilowday aan markaas hindisay aan markaas u fariistay markaas ayay ii bilowtay waa gartay aadano dabcan buug kale waxaa jiro ee aad qortay marka laga soo tago buugga dowladnimo waa door buug kale waa buug aad ugu magac dartay caawiyaha qoyska bal ka waran buugga isaguna buugga caawiyaha qoyska dowladnimada waa door midkaas waxaa ka horeeyay midkaan hadda caawiyaha qoyska wuu diyaarsanaa isagana caawiyaha qoyska isagana waxa uu ka hadlayaa macnaha inta badan sidaan wada ognahay waxaa jira xiriir marka laga hadlayo oo qoyska waxaa arkaysaa waxyaaba igu dhiirigeliya markaan ka hadlo buuggaas qoristiisa waxaad arkaysaa gabdho yaryar la guursanayo oo aad u qurux badan haddana ayagoo yaryar haddana la furayo marka dadka qaar markaad wax ka weydiiso arrinkaas waxay ku leeyihiin calafkii halkaa ku ekaa marka waa sax calafka wuu ekaa laakiin marka la hadlayo xanuunka xanuun looma dhinto laakiin dadaal daraa loo dhintaa waa qofka hadduu xanuunsan yahay aadan ku dadaalin wuu dhimanaa qofkii haddii u qoran tahay tiisa ku jirto idaa jaa ajaluha laa yastaaqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waay laakiin maxaa loo baahan yahay dadaal qofka madaxa xanuun ay ku leeyahay daawooyinka ay ku qotoma madax xanuunka raadi hay qofka waxa dhiig la'aan ay ku leeyahay u raadi waxyaabaha ku qotoma marka taas maxay ku sheegaysaa waa dadaal haddaad dadaasho waa ku guuleysanaysaa ama guul dareysanaysaa soomaa marka waxaa loo leeyahay markaad arrimahaas wax ka weydiiso qofka arrintaas ku dhacday oo kale hadda qof da'yaraa tahay maxaa sabab in lagu furo adigoo wax dhalin ama adigoo hal cunug haysto kale waxaa loo leeyahay calafkiyaa meesha ku ekaa calafka yaa dhaafka waa sax calaf uu jiraa laakiin maxaa loo baahan yahay dadaal ma fahamtay waayo markaa isguursanayseen process dheer ama soo marteen muddo in dhowr sano ama bilooyin in soo socda la yaaba marka furiinkan in durbaba go'aan la qaato la furo waxaa ka habboonaan lahayd in ayadana musalsal loo sameeyo oo ismadadaaliyo oo la isqanciyo habboonaan lahayd marka buuggaas wuxuu ka hadlayaa caabiyaha qoyska ah waxa horta uu yahay qoyska ka hor shukaansiga uu ka hadlayaa gabadha marka la guursanayo kale waxaa loo baahan yahay in ay talooyin siinayaan su'aalooyin ah inay loo baahan yahay inay wadaagaan labadood labada qofood macna isguursanayaan intii la isguursanay ka hor qofta oo aad gabadho kale maxaa habboon su'aalaha oo ayadu loo baahan yahay isweydiiso ah qofka ma ku qanacday ma ku qancin doonaa hay noloshaada ma kaafiya ma dhammaystiran yahay oo marka dhacdo inaad isguursataan khilaafkiina iyo howlihiina oo gaarka ah mid durbaba loo xalin kara ma noqonaya su'aal dhowr ah ayaa buugga ku qoran oo loo gabdhaha Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan sidoo kale waxaa ku jirto labada qofood oo xiriir ka dhaxeeyo in ay wadaagaan maxaan ku yiraahdaa xiriir wanaagsan oo habboon
siday markaasi jacayl ku dhahan inay markaasi ku noolaadaan. qodobo muhiim ah ku jiraan. sidoo kale waxaa ku jirto xaasiska badan nimanka xaasiska dhibaato caafimaadka xaggiisa ayuu ku jiraa oo lagu digayo dad fara badan oo waxaa jiraan oo hadda jacayl inay guursadaan 4 dad maalin waxaa arkayo dhahayo nin ilaahay 4 noo bani haddii 9 nool ka dhigi lahaa 10 nool ka dhigi lahaa waa dhergi lahaa. marka 4tii oo la xadiday oo macnaha mathna wa thulatha wa rubaaca la dhahay oo ziyaado kale oo sii rabaa. marka waxaa haboon in horta qofta haysatid aad qanciso iyada aad qancinaysaa gogasha guriga iyo nolosheeda inaad qanciso. laakiin in afartaas qabtid haddii qancin aan haynin haddii 4 kale sii rabtid ka waran oo ilaahay banoo banaynin marka waa dhibaato meesha jirto. caafimaadkaagana uma haboona marka la eego qofka caafimaadkiisa iyadoo marka dhakhaatiir fara badan oo marka arrimahaas markii ka hadleen dhaheen isan habooneyn. waa gartay bal buuggan caawiyaha qoyska ilaa iyo dhowr cutub ka kooban yahay bal haatanna waxaad sharaxday cutubyo ka mid ah bal intii aad qoraysay buuggan ma jira dad aad la tashatay haddii aan lahayd shacabka oo kale maadaama aad ka dhex qortay iyagu aad ugu magac dirtay caawiyaha qoyska way jiraan horta waa tii aad saan ku sheegay waxyaabaha ugu dhaliyay oo ka mid ah waxyaabaha hadda waaqiciga marka bulshada dhexdeeda ka jiro oo furiinkaas badan dhalinayo oo weliba oo qof aad u da'yar ah ajiraan dad aan kala tashatayna way jiraan oo hadda buug horta weli ma bixin isaga weli qoraal ku socdo weli hoshiis way socotaa laakiin hadda gabagabo ayuu gaaray oo hadda asagana editina tafatirada ku socoto. dad fara badan aan ku tashtay wajita dad oo maamooyin oo way arag ah oo arrimaha qoyska ka hadlayo xilli hore qoyska wanaagsan siday u dhaqmi jireen iyo haatan macnaha ku dhafo ka dhaqaaq inay tahay sheekada waxyaabaha badan ay jiraan ay sheegeen iyagana dhiirigeliyay talooyin macnaha oo wanaagsan waxa waaye waan ka helay maamooyinka qaarkood waan xiriir wanaagsan la sameeyay oo waliba dadka way arag ah oo xiliyada hore maamooyinka uu weynaa. waa gartay aadanow af Soomaaliga hadii aan u soo laabano af Soomaaligu maadaama buuggan wax ku qoran ay yihiin af Soomaaliga markeen u soo laabano af Soomaaligu waa af ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed tan iyo burburkii isbedelka ku dhacay afka Soomaaliga balka waran. walaa horta af Soomaaliga sidii sortu wuu yaalaa waxaad isbedel ku dhacay laakiin dadka adeegsanaya isbedelay laakiin Soomaaliga waxa waaye wuu yaalaa uu diyaarsan yahay buugta xilliga hore way yaalaan ma dhumin laakiin wax isbedelaya waxay tahay dadkii adeegsanay waayo luqad kasta waxa hormariya dadka iyo dalkiisa hormariya. luqadda dalka loogu hadlayo hadii meel walbo boor waliba ay ku qoran tahay af Soomaaliga dad waliba oo ku nool dalkaasna ay ku hadlayaan afka Soomaaliga luqadaas way hormaraysaa international ee noqonaysa. laakiin hadii dadkii ay markaa adeegsanayaan luqada maanguuris ama copyright waxay adkaanaysaa markaasi luqadii way taala laakiin adeegsigeeda yaraanay. marka in markaa luqadii isbedel ku yimaado waxa dhalinayo waxay tahay dadka adeegsigooda ayar. qof walba maanta oo wadamadaas tagay oo Kenya hadda nagu soo dhow tagay wuxuu jecel yahay inuu ku hadlo Soomaaliga kale ama Englishka kale. وهجاك داود يال ولي واحد داونيسان برامجك بندقة قراءة قيبه الدنب برامجك إنه كوسي سقينا برامجك تطوات كان وها إنه مرتأة قراءة آذن معلن عمر وطبعا قري الله ببوك ومده وهذا دول النمذا وما قاعد دري دول النمودور يبوك كلا لا ما قاعد بحي عاويها قويسك طبعا آذن وهدي أنا أوصل لابتو لنك سؤالها طبعا waxaa jiro qoraayaal fara badan
oo kuwa da xataa abwaaniin oo kale qoraayaal way wada jiraan adigu ma jira qoraa aad ku dayato wallahi ani waa qoraayaashu waa kulli waa taageersanahay kulli waan jeclahay qof aan ku daydo hadda oo Soomaali qoraa oo buug qoro ma jiro laakiin waxaan aad iyo aad markaa u taageeraa Amin artist ni yiraahdo oo isaga sawirada ku hadla inkastoo isagana qoraal loo u yahay laakiin waa artist isaga ninkaas waa ayaan aad u taageersanahay sidoo kale qoraalada Soomaaliyeed waa wada jeclahay laakiin inta badan waxaan daalacdaa ama fiiriyaa qoraalada qoraayaasha ajaanibta ayaan warbixinadooda iyo aan aad iyo aad markaas ku xiranahay waa gartay buugga dabcan waa daawacday ma jira waxyaabo kaaga soo noqoyo buuggan haa cibaan oo aan leedahay cancel leedahay jirto oo xoogaa aad iyo aad oo dhaliilo u waday ayuu ahaa kaas cancel ay ugu jiraa waxyaabo kale hadda aan filanayno asan inay la cancel karo way jiraan marka wili buugaata si fiican uma soo bixin bilooyinkan ayaa xoogiis macna wixii waa qoray way diyaarsan yihiin laakiin macna wuxuu u baahan yihiin tafatirid lagu sameeyo ama la tirtiray u baahan yihiin waxyaabaha saxan lis aadiyo waxyaabaha qaladka aan la qaadan karin la qobo waa gartay qoraa Soomaaliyeed ayaa tahay rajacinka ayaad ka leedahay qoraaga wala horta ani qoraa weli ma gaarin laakiin waan haminayaa hawshayda iyo wadada oo ku jira waa sidaan ku sheegay waxyaabaha aan jeclaa ayay kamid ahayd yaraanteeda waxyaabahan jeclaan waa qodob kamid oo ahaa qodob qaarna ii hirgelin kana qaybkaas ka mid ahaa muhiimadan waxay ahayd inaan waxaan jecelahay oo aan haminayo yaraanteeda inaan ka dhabeeyo ay ahayd haddii noqoto inaan sii wado aan fursadaas helo aan sii wado haddii aan fursadaas helin wax waaye muhiimadeedu waxay ahayd inaan ka dhabeeyo aan wax qoro aan bulshadana la wadaago muhiimadeedu intaas ay ahayd haddii ay suurto gasho inaan sii ambaqaado sii wado waan sii wadayaa oo aan arko waxyaabo aan wax ka qori karo waan sii wadayaa haddii Ilaahay kala noqdo insha Allah haddii dhacdana inaan gaabsadana waa ka kulay laakiin wax hamigaya ii hirgalay waa hagaag aadanow qaybihii dambe aan soo gaarnay su'aasha ugu dambeysay aan ku weydiinaa waxa ay tahay maadaama hadda aad qortay laba buug dowladnimo waa door iyo caawiyaha qoyska bal dhammaan shacabweynaha ku daawanaya inta danaysa qoraayaasha dhammaan cid alaala cid ku daawanaysa maxaa fariino u diraysaa wala horta cid alaala cid nidaawnayso waxaan leeyahay oo Soomaaliyeed oo ku hadasha afka Soomaaliyeed jecel qoranimada waxaan leeyahay waa muhiim qoranimada waxa waxay tahay waxaad sare u qaadaysaa luqadaada waxaad sare u qaadaysaa qoraalkaaga Soomaaliyeed ayaad sare u qaadaysaa waayo hadduu qoraal uusan jirin Soomaaliga ma hormari lahayn waa qofka bini'aadamkana waxa u baahan yahay inuu wax qoro waxna aqriyo haddaadan wax qorin waxna aqrin waxa waaye xayawaanka oo cooska cunay wax ma dhaantid marka inaad wax aqri kartid waxaana qori kartaa wax kartay marka waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkiina jeclaada dadkiina jeclaada diintiina jeclaada luqadiina ku faana oo sida luqadaha kale aad u jeceshiin u hormariya maanta Soomaaliya hadii bulshada Soomaaliyeed ay sare u qaadi lahaayeen meelaha qaar sare loo qaadi lahaa maanta way Soomaaliya luqada Soomaaliyeed kore u kici lahayd inkastoo hadda maalin waxaan daawanay YouTube camera aan ku jiro nin oo Soomaali oo dad ajaanib luqada baray aan u jeeday waan ku farxay ninkaas oo kale inkastoo magaciisa aan xasuusanin YouTube kan mar aan dhex wareegay ku arkay waa wax ku farxay noqotay waxyaabaha ay Soomaalidu ay ku faanaan luqadii ayuu baraya qof ajaanib
macallin wuxuu barayay baxnay tag wuxuu ugu sharxayay luqadooda ayagana way ku dhawaaqay sidoo kale wuxuu dhahay hooyo asna luqadooda ugu sharxay English ugu sharxay sidoo kale wuxuu barayay waan baxayaa waan soo noqonayaa ayada guriga ma aaday waxyaabo noocyadaas ah uu barbaray ajaanib ah gabdho iyo wiilal ay ahaayeen marka waa wax dhiirigelinayo luqadda Soomaaliyeed farxad waa ummadda Soomaaliyeed oo ku hadasha luqadda Soomaaliyeed heerkay markaas sii mareen marka hadii dadaaladaas la sameyn lahaa horumadaas la sameyn lahaa waxa waaye luqadda way sii kobci lahayd waxay noqon lahayd mid dad waliba jeclaada waa mahadsantahay aadan macallin Cumar oo dabcan kamid ah qoraayaasha Soomaaliyeed ahna sidaad arkaysaan qof dhalinyaro ah guud ahaana daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabanayaa barnaamijka bandhiga qoraaga oo aad ka daawanaysaan telefishinka SBC barnaamijkana toddobaadkan wuxuu si toos ah kaga imaanayay xarunta labaad ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho anigoo ah Muqtaar Cabdi Aadan ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkayga Cumar Xasan Buule oo dhanka kaamirada iyo editingkaba gacan weyn iga siiyay intaanu barnaamijkiisa xiga dib aynu u kulmi doono daawadayaal waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh